munaasabadan ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaana lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo booqasho gaaban ku soo gaaray magaalada London ee caasimadda dalka Britain. munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha xisbiga Tayo Party mudane Cabdi Umar Ali. ugu horeen ayaa munaasabada ka hadlay waxa uu noo mahad celiyay dadkii ka soo qayb galay munaasabadan. runtii mahad ballaaran u celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK oo isaga timid dhammaan dacallada UK hadday ahaan lahayd Birmingham hadday ahaan lahayd Manchester hadday ahaan lahayd Leicester hadday ahaan lahayd Bristol iyo London oo dhigi karo uma kala harin runtii xafladan qabanqaabadeeda waxaa iska lahaa iyo fikirkeedaba Tayo Party oo daafaha dacallada adduunka oo dhan runtii kala joogto. Tayo magaalada London ayaa lahayd runtii inay xafladan ay ka shaqeyso ay qabanqaabiso iyo taageerayaasheeda London oo runtii garab istaagay. waxaan runtii aad ugu mahad celinaynaa oo rabnaa inaan mahad celin ballaaran siino jaaliyadda reer London dad ka mid ah oo runtii habeenkii la sheegay inuu imaanayo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo runtii la garab istaagay ilaa habeenka caawana runtii na garab taagnaa. intaa kadib walaalayaal waxaan aad u jeclaan lahaa inaan hadalkayga ku soo koobo rajada kaliya ee aan isleeyahay anigu waa u iftiimaysaa ummadda Soomaaliyeed waa Tayo iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaan rabaa inaan u tacsiyeyno kulligeen aan faataxadan u marno dhalinyaradii naga baxday oo iyagoo tahriib ah ay doonta la qalimatay kan ugu weynaa uu ahaa 30 jir raadinayay annaga intaan haysano runtii tiiraanyo iyo naxdin weyn iyo ummadda Soomaaliyeed ku ahayd waalidiintoodii iyo dadkoodii samir iimaan Allah ka siiyo 25 sano ku jirnaa maanta cudurka Soomaaliya haysta 3 arrimood way ha iska dhaga tirina waxa dhalinyaradaas ku dhacay way ku dhici doonaan kuwa Soomaaliya hadda ku dhalanaya haddayna anagu u istaagin haddayna garan wax naga khaldan anaga 3 arrimood yaa naga khaldan oo cudur lagu ah koo horta qabyaaladda waa isla fahamnay inkastoo dhagaheenu waxba maqlin cudurkaas Allah naga daaweeyo waa cudurka qaarnimadeena hortaagan oo maanta Soomaaliya ay u gaar laadahay qaranimo corruption-ka iyadana waa arrin hortaagan qaranimada Soomaaliyeed. tan saddexaad waa al-shabaab iyo xaq jirnimada. corruption-ka iyo al-shabaab aniga dhankay waa isku mid waxba igu kala duwana. al-shabaabku iyo xaq jirku hal mar iyo wax dilaan intay meeshan soo dhigaan bam baawla la soo dhaxgalaan iyo hal mar waxay tirtirayaan 20 qof 30 qof 50 qofna waa dhaawac. corruption kuna si slow ah iyo qaranka u dilaa. marka walaalayaal waxa loo baahan yahay hoggaan toosan oo ilbax ah ayaa loo baahan yahay. maanta Soomaaliya waxa ka maqan aqoon ma aha wisdom iyo aqli ma aha ilbaxnimo ka maqan sophistication wax la yiraahdo yaa ka maqan inteena badan Soomaali sophistication kaas ma hayno waxa noo soo socda election saan ognahay 25 sano waxay nooga hartay oo aan adduunka uga harnay oo burburka noogu maaragtay dhacay qof walba wuxuu rabaa qof qabiilkiisa ah inuu madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo wuxuu ku qabanana ma laha laakiin magacaas uu rabaa intuu meelaha fariisto uu yiraahdo annaga meesha haysana warka haysata tuu nacas yahay how u faanaysa ha qof dalkii burburinaya oo caruurta aan kula kornayn oo wixii hantiya ummadda ka dhacaya oo amaanadaan ilaalinaynin oo caadil aan ahayn oo naxariis aan lahayn muxuu kugu taray qabiil runta taala waxay tahay waxa la rabaa inaan caalamka la tartamo caalamkana waxaad kula tartami kartaa adoo qofka ka fiican soo istaajiyay oo Soomaali ah
هذه قبيل هدو نقض قف أديك أدودكتان غير وحوي وكسي أوصل كسين عدالة قف كاسي وعدو صوماليات واي هدو أديك جار وحكو سميو وجار كوسيو معناه هذا وحوي ووحو كقاعد قف كله أو صومالي هذا المدنين هذا مدن تهيب ومدن تهيبة ماشي وحلو بها عدالة ومضى Somali wa kuma